kusoo dhawaada Sharaf Films haddii aad ku cusub tahay fadlan YouTube-ga subscribe saar siina share gareey si asxaabtaad kula daawato muuqaalada aan meel kasta soo gelin absa kusoo dhawow Sharaf Films waan ugu dhawahay dhawaan ayay ahayd markii awaan dhuxul laab Saalax ku soo dhaweeyay farxiye ka beereen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wuxuu sheegay in gabadhiisu abwaabaan la Saalax gabadhiisu wuxuu sheegay gabadhiisu inay ka codsatay inuu soo dhaweeyo farxiye ka beereen arrinkan maxaa ka jira kadib arrinkan ujeedo ugu lahayn halka ujeedo gaar u kala ujeedo gaar ay kala ha okay abwaan laab Saalax wali hees uu leeyahay muudhiga farxiye ka beereen may ma jirto muudhi oo arki lahayn ba muudhiga Soomaaliya waayahay su'aasha kale ku diinay waxay tahay wali abwaan laab Saalax Mareykanka ma tagay may dalka dibadiisa aan karo Istanbul buu tagay meel Yurub wali ma gaadhin kaas ma tagin insha Allah ama Mareykan ma tagin ba Yurub kale ama Mareykan ma tagin waayahay adir waxa sheegtay inuu ujeedo gaar ah u ka lahaa ama uu soo dhaweeyay farxiye ka beereen ujeedada gaarka ah maxay ujeedo gaar kala waxa uu jeclaa marka jacayl buu hayaa sadartii uu soo dhaweeyay waayahay barasiga hore aan ka qaaday abwaan shaacir wuxuu sheegay abwaan shaacir in farxiye ka beereen qamar suugaan isfaashay sax marka adigu waxa leedahay ama la oran karaa meeshu waa jacayl saddex xagala farxiye ka beereen waxa jeceshay qamar suugaani iyadana waxa jecel laab Saalax sax okay horta ma xumayn la jeclaado wax dib ku jirtana maaha qof ka helaa qof dooq buu leeyahay iminkana de saddexdooda Hargeysa wada joogaan wadka fanaaniinta isku tiimkaas u shaqada bal halkay dhacdo baneegina jacaylkaas saddex xagalka la abaan laab Saalax uu doonayo farxiye ka beereen ay doonayso qamar suugaani iminkan soo baxay waayahay halka dhacdo bal inaga iyo daawadayaasha iyo shacabka Soomaaliland waa wada joogaan halkay u dhacdo من 6 بودع إنه يجيك بودع ولقيت بس تاسي mar labaad aad ku cusub tahay fadlan YouTube-ga subscribe saar siina share garee si asxaabtaadu kula daawato muuqaalada quruxda badan ee meelaha soo gelino aad